السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan salaamaya dhammaan baahda Leaf Good meel kastoo aad joogtaan inaa wanaagsan jiraan rajeynaya. Maanta waa khamiis kasta waxaa la fishaaba waa lacagihii isbuuca la shaqeysto. Dadka isbuuca hore shaqeystay isbuucan lacag ay heli doonaan. Inta badan dadka cusub waxay soo weydiiyaan xalwa khamiistii waa la gaaray lacagta aaw. Waxaan rabaa inaan idin sheego lacagta ma shirkadda waxaa laga xukumaa wadanka Mareykanka. Mareykanna marka subax ay u tahay reer Afrika iyaga habeen bay u tahay. Way naga dambeeyaan ama way idinka dambeeyaan reer Afrika haddii aad tihiin. Marka iyaga ay waagu u baryo Afrika waxay u tahay 6 maqribnimo iyo wixii kasii dambeeya marka la furayo xafiisyada ama shaqada ay bilaabanayso. Marka fiidkii markay tahay ilaa galbihii maqribka ay heleysaan lacagihiina waa xilliga Mareykanka xafiisyada la furo. Marka aad lacag kuu soo dhacdo maxaad ku garanaysaa waxa kuu soo galaya account-kaada credit wallet. Credit wallet-kaasi markuu kuu soo muuqdo waa qasnadii lacagta ay kugu soo dhici lahayd ee xafiiskaada. Waxaad samaynaysaa ugu horreeya waxa waa kaliya ayaad siinaysaa. waxaad eegaysaa inta lacag kuu soo gashay waxa kuu soo gashay halkaas ay kugu qormaysaa balansiga markasta waxaad aad uga taxadirtaan inaad taabataan bottomkan buluuga ah oo transfer to earn ay ku qoran tahay haddaad taabataan lacagta way idinka dhumaysaa biliis ha taabanina ama shirkadday ku noqonaysaa ama hadhow waxaa lagu dhahaa product ayaad ku gadatay totally yaan la taabanin lambarkaasi ama bottonkaas ha taabanina marka aad aragto lacagtan kuu soo gasho waxaad xiriiraysaa qolada agency-ga ee lacagta aad kala bixayso haddii Soomaaliya aad joogtid dhowr qof aad jira oo Soomaaliya dadka lacagaha u bixiyo hadba qofkii adiga xiriir aad la leedahay la xiriir marka qofka wuxuu ku leeyahay ID ayuu kuu soo diraa lacagta ku dir ama username marka lagu soo diro ID hadii lagu soo diro halka kore waxaad gelinaysaa ID numberka hadii lagu soo diro username halka hoose username kaad gelinaysaa okay ani hadda username-ka aan geliyo xalwo kadib waxaad ilaalisaa sidoo kale inaad lacagta dooratid choose credit types halkaas ayaad tegaysaa kadib waxaad leedahay transfer commission ayaad dooranaysaa haddii iyada oo order product saan ay ku doorato waxaa laga yaabaa lacagta inay kaa lunto ama lagu yiraahdo product ku gadato ama company ay ku noqoto marka aad dooratid aad hubisid lacagta inaad dooratay transfer credit kadib waxaa leedahay continue markaa dhahdid waxaa kuu soo baxay lacagta imisaad diraysaa tusaale waan yiraahdaa in hadda $1 ayaan dirayaa idinkaan rabaa inaan idin tuso markaad $1 aan dalbaday waxaa ii soo baxday qofka aan lacagta u diraayo macluumaadkiisa kuu soo baxay haddana waxaa ii soo baxday xalwo kadib waxaan leeyahay okay xalwaan u dirayaa send credit issue markaa dhahd micnaheedu waxa weeyaan waxaad hadda ii dir lacagta waa lagu dir halka waxay ahayd 65 hadda 64 ayaa kusoo hortay dhibic 27 kadib continue leedahay lacagta sidaas ay kugu dirsantay intaa markaa samaysid kadib waxaad la xiriiraysaa qofkii sawirka ayaad ka qaadaysaa ama u diraysaa waxaa leedahay lacagtii way ii baxday kadib telefoonkaada ayaa lagu soo shubayaa iyadoo dollar ah soo warcad maaha